maalmahan waxaa ku jira saddex maalmood oo si gooniya loo sheegay waa yawmu carafa yawmu nahri yawmu alqar yawmu alcarafa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma min yawmin akthar min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmi carafa maalin ka badan addoon ilaahay inuu naar ka xoreeyo maalinka carafa ma ay jiraan waa yawmu almaghfirati wal'itq min an-nar ilaahay nagu dar maalinka weyn ma jiro cadadka ugu badan oo naar laga xoreeyo maalinkaas laga xoreeyaa markaas nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu noo sheegayaa soomka maalinka muhiimada uu leeyahay مكاسو النبي يري صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله وحان إلهي كأجر حساب سنة ما لنتا سون كيدا إنو دنبي يقرأ فكيه هره إيا كيد دنب الله بدن إلهي يكون ضعف مالك أقوب بدن والنار تلقى حره يويان الضوء كوة مشرق جوغ يا كوة مغرب جوغ يا كوة جوغ ما تقانا حجكي جوغ يا كوة غريو دي جوغ كوة باديها أريغا كورا عنايا أدون كستميشو جوغ إلهي سبحانه وتعالى هدو لي ماذا عمل صالحا يا عبادة وناكسن ومالك إلهي أوافتيو وحكم دي هيدات كاس دنبي قود الله دافيو عذابك إلهينا لغا حرينا مالك كلوا يوم النحر ومالك كحيق يوم عرفة ومالك طبنات وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله إلهي أكتي سمال مها وحا أقوي يوم النحر مالنت يوم النحر وعيد وأعماش حجك بدن كذا الله سمينها يوم أي أقوي ومالك والله طورانيا والله حيرانيا والله قليا طواف كي والله سمينيا سعي كي والله سمينيا أعماش حجك نوع أنت وقبضا مالك دعوي ومالك ثم يوم القر مالك كذا بيوم القر ومالك كوية طبنات يوم القر وسقناشها أي محجيد مركي عمل كاس سميان أي ننتقي كرين أي منكو السقنانيا إني بحان الله ضل مالك أسوء الحافظ ابن حجر وحو يري سيدا موقته مالمهان فضلك وحا لوسي وحا ويان مكان لاجتماع أمهات العبادة فيها عبادوين كي وينا مال أي كل مكران مالمهان باكتشرة الصيام الصدقة الحج وحويان كل واحد كل ما مالك صلاة دي باكتشرته صدقة دي صومكي انت هدا ادوغ لا تيمادid adoo maalmahan aan joogin meel kale aad kula timaadid xajki baa ka maqan maalmahan marka waxa ku kulma acmaashaas waa weyn oo xajku kamid yahay mana suurtoobi karta maalmo kale inay ku dhex kulmaan ma suurtoobi karto maalmahan bay ku kulmayaan الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب الحنبلي asna wuxuu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala rahmadiisa dadka muuminiinta qulubtooda waxa la dhigay hilow iyo jacayl ay u qabaan inay sanad walba soo arkaan beedkiisa oo ay soo daawadaan ayaa qalbigooda la dhigay qof kastana ma awoodo markaas ilaahay wuxuu kala qaada dadkii qofkii awooday hal mar baa lagu farad yeelay inuu taga meeshaas 10 kan maalmoodna waxa laga dhigay 10 maalmood oo la wadaagsado kuwii xagga tagay iyo kuwa aan tagin oo xajku u suurto galin waxa laga dhigay amal ay wada wadaagsanadaan oo fadaa'ishi baa loogu wada sheegay markaas qof kasta meeshiisa ka didaalaya oo fadiiladii iyo qiimihii uu helahay qofkii asagoo aan bixin gurigiisa jooga ee amal wanaagsan la yimaada wuxuu noqday qof ka fadli badan qofkii jihaadka aad ka fadli badan buu soo ma jiro acmaasha wanaagsan oo ay haboonta in lagu didaalo maalmahan inta ka hartay oo yarta ah waxa kamid ah الصيام
صونك أيا كمل هدي أنت كلا أي كدافته مال أنت عرفة ين كدافي صوم ولما مالك وحى اسكت ضيدا وحى أذو الله ذهي أو هنتدا إنا مجموعة أضد أفرسيد اسكت ضي وفرصة ضدك أين وذا فهن سنين waxaa laga yaabaa dadka halkan fadhiya badankoodu waxay u go'aan inay maalinka Soomaan aysan dhaafin qof kasta go'aan bay u tahay maalinka inuusan dhaafin laakiin mid ku daro maalinka amalka la sameeyo waa amalka Ilaahay agtiisa loogu jecel yahay sadaqada kamida waxaad isku daydaa dariskaaga iyo majmuucada saaxiibada ah inaad tiraahdo la soo afura cunno badan inaad samaysid masaakiinta aad siisid oo ay ku kulmaan qofkii hal qof afuriya wuxuu leeyahay ajarkii soonkiisa oo kale uu leeyahay boqol qof baad afurisay boqolkii qof oo aad afurisay soonkaaga ajarkiisa adoo leh boqol qof soonkood ajarkii ay lahaayeenna waa lagu qoray bal ka war maalinka marka xasanaadka aad iyo aad in lagu diidaa si gooni ah maalmahan dhexdooda waxaa la badiyaa dhikrullah ilaahay xuskiisa haday tahay quraankii haday tahay salaadii haday tahay sadaqadii haday tahay tasbiixdii haday tahay tahmiidii in maalmaha la badiyo ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam nagu hanuuninaya sadaqada in la badiyo maalinka tobnaada ugu fadli badan waa maalinka la rabo al-udhiya qofkii awooda inuu udhiyaysto ha ka tagi dhaqankaas naftaada bar ilmahaagu waa ka dhaxlaya markay yaqaanaan aaba udhiyo qalaa oo gurigeena udhiyo ayaa lagu qalaa ay bartaan tarbiya wanaagsan bay noqonaysaa waxay ilmahaagu hadhowta ku didaalayaan alla aaba udhiyo qadi jira waa inaan qalnaa markii waa weynaada sunna waxay noqonayaan ay aad iyo aad tarbiya wanaagsan weyn soo kaxaysa neef laba hada awoodi ka dhig saddex hada awoodid badso كان قيب gurigaaga ahalkaaga qayb masaakiinta qayb hadiya sidaabaha soo kala qayb shardina ma ahan qaybta bixinaysid iyo qaybta la harisina isla ekaysa shardi ma ina wax un ka bixisid waxna la hartid masaakiinta wax siisid ayaa muhiim ah intaas ama neefkana dadku waa yaqaanaan oo inuu san ceeb lahayn way og yihiin oo waa la bartamidaas waxa weeyaan tafaasiisheeda badan dadka wax badan ayay ka yaqaanaan waxa ku didaashaa maalmahan inaad dadka wanaag u sheegtid xumaantana ka reebtid oo waa fursade dadka aad taqaanido saaxiibada ah dadka balwada leh dadka dhaqamada xun leh kuwa aan salaada tukan nasaaix wanaagsan gaarsiyo maalmahan fadliga badan nala soo ciid aan isla afurna yawm arafa soon dharkaaga dhaqo salaada ilaahay tuko kaalada masaajidka imaw waxa ka qayb qaadataa kelimad macruuf ah maalmahan ina sabab ugu noqotid ilaahay inuu dadku ugu soo hanuuniyo waa amal aad iyo aad u weyn oo dadku aynan in badan garanahay ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna waafajiyo